Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkeena maanta waa kii sagaalaad kaasoo inuu ku dhigan doono sida loo bedelo passwordka. Okay, wixii su'aaladan u tirtiri doontaan samtid20.gmail.com insha Allah. Haddaynu casharkeena bilaabano waxaynu tegaynaa classkeeni inuu hayay controlkeeni inuu hayay classkeeni controlkeeni u dhex jiray inuu hayay actionska userska. Okay, waxaanu samaysanaa encryption-kii haddaba. Okay, variable baan samaysnay encrypt SQL forms authentication dot okay qoso for log dot waxa la bedelayo waa passwordka hakad SHA-1 okay anu ku tasano waxaad gelinaysaa username-ka iyo passwordkii la bedelay oo encrypt inoo xabaarsan tahay. Okay, kan ayna waafajino. Okay, go to definition. Okay, inta naga masax variable isu dhiban doona string user hakad string pass. Okay, halkan nagu bedel user iyo pass. Okay, aynu eegno iminka registerkii registerna user. Okay, aynu ka eegno lul baynu ku qoranay. Okay, passwordkana 123 create. Okay, waxaa soo tuuray message-ka kaasoo inoo sheegaya in meesha la gelinayo xarfaha lagu gelinayo ay ka yar tahay intii hore inta loogu talagalay marka la encrypt gareeyo inta xarfood ay noqonayso iyo kan iminka yahay baa kala fara badan. waxaynu tegi doonaa table-keeni table iska soo fur table user right click design de. Okay, makala 20 makala encrypt gareeyo 20 waa ka badanaya. Kaynu bedelno alter table kan waxa ka bedelino userskiya meeshaan waxa ka bedelino kalam ah iyo kalamkan waxa ka bedelina magaciisa username maanu khadbiis password nooga dhig. Okay, konton xarfood inuu qaaday karin ka dhiganay. Iminka aynu eegno register 123 kali create iminka automatically u geeyay aynu soo hubino SQL-keeni. Okay, select all from table-keeni user is okay execute already wuu bedelay soo encryption-ka ah. Okay, nagu celi ana ku kalmo iminka kuma gali karno waayo encryption-ka sidiisa inoo soo akhrinaya uu khaldan yahay marka waa inaan sameeynaa kii decryption-ka sameynaya marka waxa ka dhiman in la soo decrypt gareeyo 1 2 3 loo soo celiyo marka la galiyo. Okay, login-keenu tagi doonaa isna inta decryption-ka sameynaysan ku darsan doonaa variable bay u dhiibanay. waxaan decrypt bedel forms authentication dot hashed password for storing in config file. Okay, xaga wixii la bedelay baan ka dhigi doonaa login dot password hakad SHA-1 okay similar nagu sahid aga login passwordka inuu yara bedelano aanu ka dhigano kii soo decrypt gareeyo ah decrypt. Okay, aynu bildi gareynaa iminka aynu eegno haddaba 1 2 3 ku gal login automatically window
home page kina geeya. Okay, saasoo ka decrypt gareeyay insha Allah waa inoo casharka kan xiga